magaalada muqdisho oo aan iyadana dhowaan booqday dadkii aan kula kulmay waxaa ka mid ah madaxweynihii ugu horreeyey ee Soomaaliya mudane aadan cabdulla cusmaan oo dadka intiisa badani ay u yaqaanaan aadan cadde mudane aadan cadde rasmiyan waxa uu degan yahay beertiisa oo ku taalla Mushaani oo u dhow Jannaale markaan muqdisho kula kulmay waxa uu ka soo laabtay socdaal uu dalka dibaddiisa ku tegay waxaan aadan cabdulla cusmaan weydiiyey bal markii ugu horreysay sababta ku dhalisay inuu siyaasadda ku biiro waxay ugu dhaliyay Soomaali qabiil inay ka baxdo oo yaani isku mid ay noqoto inaan wax ka shaqeeyo ay ugu dhaliyay intii aad siyaasadda ku jirtay waxaad ka gaartay jagada ugu sarreysa oo waxaad madaxweyne ka noqotay dalka Soomaaliya xilal kale oo kala duwan dabcan waad qabatay muddada aad siyaasadda ku jirtay ma xusuusan tahay go'aankii kuugu adkaa ee xafiiska kuugu soo mara ama dhibaatadii kuugu badnayd ee aad kala kulantay maamulkaaga siyaasadeed muddo dheer baa ka soo wareegtay marka yaani wax alla wax iga hor yimid oo yaani ama aan ku farxo ama yaani aan maduran ka noqdo ma xasuusto xaqiiqada walaakiin anigu dadaal baan hayay intii horta Israa'iil waxaan qortay anigu 1944 bishii Febraayo yaa qortay waxaan ku dhaartay Soomaali ninka aabay hooyada ay dhaleen iyo ninka hayb ugu sheegay inay isku kamid yihiin marka cadaaladaas iyo qabiil diidaas yaani anigu Israa'iil ku qortay waxaan qoray anigu yaani balweyno inaan qortaan uga soo tagay oo xamar ka qorto Abdullah Ciise asaguna ii soo qor marka awalan leegadii waxaan ahaanu numberkii Abdullah baan ka dhigay numberkii 29aad ku horeysay intii qortay anigu numberkii 30aad baan noqday marka hadee anigu waa shaqeeyay intii sida waa shaqeeyay Ilaahay baa iga sareeyay laakiin wax ee ma gooni aan lahayn oo ahayn yaani Soomaali inay isku mid noqoto ku dadaal oo contribuire waxaan ma jirin hadda dalka Soomaalida waxaad ka warhaysaa dhibaatooyin fara badan in ay ka dhaceen intii aad ka shaqeynaysa maamulka ama Soomaalida dhan aad madax u ahayd ma saadaalisay oo maamulka jira iyo dadku siday u dhaqmayaan marna ma istiri dagaal la xoog leh iyo sokeeye ayaa sidan u dhici doona ma ismaanan dhihin maxaa jira xaqiiqada 7 sano oo presidenta ka ahaa xaalku waa socday yaani in ka soo qaad u dhacayay wax weyn oo dhaco yaani muxuu aan waxaas isku aan yaani aan islaamay saas noqota ma jirin hadda ummadda Soomaaliyeed maxaad u soo jeedin lahayd oo talo iyo tusaale ah waxaan soo jeedin lahaa inay yaani nin walba oo Soomaaliya inuu meel dhigo wax asaga maslaxadiisa khaas inuu meel dhigo oo wax walba kormariyo Soomaaliya yaani heshiiskeeda iyo walaaltinimadeeda inuu wax walba u horo heshiiska Soomaaliyeed iyo wadajirka Soomaaliyeed mudane aadan cabdulla cusmaan aadan cadde oo dhowaan aan kula kulmay magaalada muqdisho aadan cabdulle waa madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya 7 sano ayuu dalka ka talinayay si nabad ah ayuuna xilka uga degay kadib markii doorasho looga helay inta kadib waxa uu weligii ku noolaa dalka gudihiisa haddana waxa uu degan yahay beertiisa oo ku taalla meel u dhow Mushaani oo ah tuulo ku taalla Jannaale agtiisa Salaanki sare u dhigaysay dhaqankeena wasaaydi tidena Suban sahawiye